halkan waa Maracadda Show. ka mid noqo saaxiibada sida joogtada u hela macluumaadyada ka dahsoon. Assalaamu calaykum. kusoo dhawow daawada qaybta labaad ee macluumaadka ku saabsan isbahaysiga hay'adaha sirdoonka ee Mossad iyo CIA ee dowladaha Mareykanka iyo Israa'iil. qaybta koowaad ee macluumaadkan waxay inoo joogtay dugsi cusub oo afka Mongoolka lagu barto ayaan furnay, kaalmadiinana waan u baahannahay. waxaana telegramka uu ka yimid madaxa sirdoonka ee Mareykanka ee CIA John Micon, waxaase ku saxiixnaa magaca Bob. Master Amidna waxa uu gartay in arrintan uu ku lug leeyahay ama ay ku lug leedahay arrintii diyaaradda AMIG 21. qaybta labaadna waxay ku bilaabanaysaa sidan. isagoo aan waqti iska dhumin daalkii hayna aanan ka fikirin ayaa Amid waxa uu u duulay dalka Mareykanka. laabtana waxa uu ku hayay in wada shaqayn iyo xiriir wanaagsan uu ka dhaxeeyo sirdoonnada Mareykanka iyo Israa'iil. John Micon oo ah taliyaha hay'adda sirdoonka CIA ee dalka Mareykanka ayaa si wanaagsan waxa uu soo dhaweeyay Master Amid, waxaana uu ku qaabilay xafiiskiisa oo ku yaala rugta CIA-da. wuxuuna tusiyay warbixin uu soo diray safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Ciraaq, taasoo ku saabsan in dowladda Ciraaq ay doonayso 16 dooliyo oo Ciraaqiyiin ah in tababar loogu soo siiyo dalka Mareykanka si ay u kordhistaan xirfadooda dooliyanimo. waxaana ay muddo 4 bilood ay ku tababaranayaan saldhig ku yaala gobolka Texas ee dalka Mareykanka. John wuxuu u sheegay Amid in isaga qof ahaan uu dooray in la geeyo dooliyaashaasi gobolka Texas, waayo xag nabadeed darteed oo u suurtagelin karta in mid ka mid ah la soo xerogeliyo. magacyadii markii uu arkay Amid durbadiiba waxa uu ku laabtay Israa'iil si basaasiintiisa jooga ay warbixino uga soo ururiyaan 16kaasi dooliye. inkastoo cimiladay aad u qaboobay jiilaalkii 1964, haddana dhiigga sirdoonka Mossad aad ayuu u kululaa. qabowgiina waxay ku iloobeen ku howlanaanta kombiyuutarada xilligaasi uga casrisanaa oo ku jira qolal gaar ah oo ay ku keedsanaayeen warbixinada iyo xogaha dooliyaasha dalalka Suuriya, Ciraaq, Masar iyo wadamo kale. tani intii hoggaanka Mossad uu qabtay Master Amid waxa uu ku howlanaa sidii basaasiinta ugu beeran lahaa dalalka Carabta, gaar ahaana Suuriya iyo Masar. sidaasi daraaddeed Masar waxaa lagu beeray basaaskii caanka ahaa ee Wolfgang oo iska dhigaya nin fardaha dhaqaaleeya oo farda leh, taasna ay u suurtagelisay inuu dhex galo bulshada inteeda sare iyo sidoo kale siyaasiyiinta Masaarida iyo saraakiisha ciidamada, taasoo u suurtagelisay inuu helo sirar aad u tiro badan. balse waxa uu ku guuldaraystay inuu u soo jilaabo dooliyo Masar ah oo halkaasi ka soo dhaqaaqa. warbixintii Israa'iil u diray waxa uu ku sheegay in dooliyaasha Masaarida ay ku jiraan nolol aad u wanaagsan, kuna leeyihiin bulshada dhexdeeda xushmad aad u sarreysa, sidaasi daraaddeedna aysan dhicaynin in la soo xerogeliyo. Wolfgang waxa uu ku dhashay dalka Jarmalka sanadkii 1921. waxaa iska dhala aabba Jarmal ah iyo hooyo Yahuudi ah. hooyadiis ayaa ula baxsatay Israa'iil, halkaas oo ku bartay aqoonta beeraha, waxaana uu ahaa nin aad fardaha u jecel. sanadkii 1960 ayaa loo diray dalka Masar si uu u basaaso, isaga oo iska dhigaya nin Jarmal ah oo fardaha dhaqaaleysta, halkaas oo sirta uu ka soo tabin jiray isaga oo adeegsanayay qalab ugu qarsanaan jiray ciribta kabaha oo fardaha uu ku fuulo. 1961 ayaa waxa uu guursaday naag Jarmal ah oo aad u jecleyd oo weliba ka kaalmaysay dhinaca basaasida. 22 bishii Febraayo sanadkii 1965 ayaa la qabtay, waxaana lagu xukumay madaxaha ku furto, balse markii dambe 68 ayaa waxaa lagu bedeshay maxaabiis Masaari ah oo Israa'iil ku xirnayd. yaabkiisa wuxuu yahay xitaa markii la sii daayay Wolfgang oo uu Israa'iil aaday, wuxuu ku adkeysanayay inuusan basaas u ahayn Israa'iil ee uu u ahaa dalka Jarmalka. dhinaca Suuriyana waxay ku beereen basaaskii Israa'iil ee u bixisay mudanaha basaasiinta Mossad ee Elin Cohen oo aad xiriir dhow ula yeeshay saraakiisha sarsare ee dowladda iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda qudhiisa Amin Xaafid. 3 sano iyo 8 maalmood ee uu joogayna waxa uu waayay hal dooliyo oo Suuriyaan ah oo diyaaradda MiG-21 ula baxsaday Israa'iil. sababtana waxa uu ku sheegay waa isla tii dalkaasi Masar laga soo sheegay duuliyaashooda oo waxay ahaayeen kuwo ku nool nolol aad u wanaagsan. halkan waa Maracadda Show. ka mid noqo saaxiibada sida joogtada u hela macluumaadyada ka dahsoon. Elin Cohen waxa uu ku dhashay magaalada Iskandariya ee dalka Masar sanadkii 1924, waxaana sanadkii 1956 uu guuray Israa'iil, halkaas oo ku biiray cutubka 131 ee sirdoonka ciidamada Israa'iil. cutubkaas oo markii dambe Amid uu ku daray Mossad.
3 maarso sanadkii 1961 ayaa Cohen loo diray dalka Argentiin isaga oo iska dhigaya nin Suuriyaana oo wata magaca Kamaal Amin Taabit si loogu carbiyo basaas Suuriya rufiyaamaya. halkaas waxa uu ku bartay Suuriyaan badan oo halkaasi deganaa oo uu ka mid ahaa Amin Xaafid oo markii dambe noqday madaxweynaha Suuriya. 10 Janaayo sanadkii 1962 ayuu yimid magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Suuriya oo uu si ballaaran uga bilaabay basaasnimadiisii. 18 January sanadkii 1965 gacanta ayaa lagu dhigay. dadaal kasta oo lagu doonay in lagu soo daayo Eileen Cohen waa ay socon weyday. 18 May sanadkii 1965 ayaa lagu daldalay barxadda Marja halkaas oo uu ka laadlaaday 4 maalmood tani intii uu ka fuuray oo uu uray jirkiisa. sarkaalka kashifay Cohen waxa uu ahaa gaashaanle Axmed Suwaydi oo ahaa nin aad u maskax badan aadna u jecel wardoonada iyo basaasnimada. wuxuu madax ka ahaa qaybta labaad ee sirdoonka magaalada Dimashq ee dalka Suuriya. tuhun galay awgis asaga ayaa qof ahaan waxa uu aaday magaalada Moscow ee dalka Ruushka halkaas oo uu kaga soo laabtay baabuur gaashaaman oo ay ku rakiban yihiin qalab casri ah oo lagu ogaado laguna dabagalo qalabyada iyo xiriirka isgaarsiinta. tuhunkiisina waxa uu dhaboobay markii uu qabtay fariin u socotay Israa'iil oo ka timid guriga Jamaal Amin ama Cohen. markii ciidanka ay galeenna guriga waxay gacanta ku dhigeen qalabkii isgaarsiinta oo uu adeegsan jiray Eileen Cohen. maalintii Cohen la qabtay maalintii ku xigtayna waxay sirdoonka ee Suuriyaanka ay gacanta ku dhigeen Farxaan Ataasi iyo sidoo kale Cabdulmuciim Xakami oo u shaqeynaya sirdoonka Mareykanka. maxkamad degdeg ah oo la saarayna labaduba waxaa lagu xukumay dildaldalaad ah. inkastoo Mareykanka iyo dowlado badan ay ka codsadeen Suuriyiinta inaan la dilin Farxaan Ataasi oo dhalasho Mareykan watay, haddana dowladda Suuriya waa ay diiday iyaga oo leh dal walba isaga ayaa u madax bannaan siday ula dhaqmayaan dhagarqabayaasha. 24 bishii 2 sanadkii 1965 ayaa Ataasi iyo Xaakamiba lagu daldalay barxadda Marja. dadweynihii u daawanayana iyo warbaahinta caalamkana goobta ayay joogeen. isla markaasina dowladda Suuriya waxay dalkeeda ka ceerisay danjirihii Mareykanka u fadhiya dalka Suuriya. dhinaca Ciraaq oo basaasiinta Mossad ay aad ugu badnaayeen oo uu joogay ninka lagu magacaabo Azra Naji oo ahaa ragga ugu halisan basaasiinta Mossad, wuxuu ku guuleysan waayay inuu keeno duuliye Ciraaqi ah oo u hoggaansama amarkiisa. inkastoo uu keenay warbixinno aad u sarreeya oo dowladda Israa'iil aysan ku hamin weligeed inay heli karaysay oo ku saabsanaa shaxda gantaalada Ciraaq kuwii dhulka, waxa uu ku guuleystay inuu Israa'iil u geeyo 140 Yahuud Ciraaqiyiin ah isaga oo sii marsiiyay Iiraan. Azra Naji wuxuu ahaa Yahuudi Ciraaqi ah oo dhashay sanadkii 1927. wuxuu ka shaqeynayay wasaaradda ganacsiga. sanadkii 1953 ayuu guursaday Yahuudiyad aad u qurux badan oo la yiraahdo Rawaan. meherkeeduna waxa uu noqday in Azar uu u khiyaano dalka Ciraaq. waxaana tababaray basaas Yahuudi ah oo asalkeeda Iiraan ahaa. oo asalkiisu Iiraani ahaa. hawshii ugu horreysay ee loo xilsaaray waxay ahayd soo gudbinta Yuhuudda Ciraaq. markii dambena waxay u leexdeen isaga iyo xaaskiisu sir aruurin iyo basaasnimo weyn. naagtiisa keligeed waxay soo xirigelisay oo ay basaasiinta Israa'iil ay ka dhigtay 13 Ciraaqiyiin ah, balse sanadkii 1966 ayaa kooxdii Azar la ogaaday oo gacanta lagu dhigay. isaga iyo naagtiisa iyo sargaal kalena waa la daldalay. 5 sargaal oo sarana toogasho ayaa lagu dilay. halkaa inoo joogto macluumaadka qaybta labaad ee isbahaysigii hay-adaha sirdoonka CIA-da iyo Mossad ee dowladaha Mareykanka iyo Israa'iil. macluumaadkan waxaa ila wadaaga mid ka mid ah saaxiibada sida aadka ugu taxan barteeda YouTube-ka ah ee aadka u daneeya arrimaha sirdoonka. qaybta xigta intaan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo. waad ku mahadsantahay la socoshada, daawashada iyo ka aragti dhiibashada qaybaha kala duwan ee warbixinada sirdoonka ee halkan aan kusoo gudbiyo. haddii ay tahay markii kugu horreysay, subscribe si aad u hesho muuqaalada iyo macluumaadyada dhanka sirdoonka, caafimaadka, qoyska iyo xigmadaha la xiriira ee aan kusoo gudbiyo barteeda Maracadda Show. halkan waa Maracadda Show. ka mid noqo saaxiibada sida joogtada u hela macluumaadyada kaa dahsoon. qaybta 3 intaan ku kulmi doono, nabadgelyo dushaada ha ahaato.